waxaa magaalada muqdisho maanta kulan aan caadi ahayn oo ku leh madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi ka socda beesha caalamka. kulankan ayaa waxa uu ka socdaa hadda garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International Airport, waxaana uu yahay mid ay albaabada u laaban yihiin. xubnaha wafdiga ee ka socda beesha caalamka gaar ahaanna dowladda Mareykanka ayaa waxa ay madaxweynaha kala hadlayaan arrimo ay ka mid yihiin musuqmaasuqa la sheegay in ay hareeyeen howlaha la xiriira dib u habeynta amniga, taasi oo kal hore ay walaac ka muujiyeen safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. xubnaha wafdiga ee kulanka maanta ka qayb ka ah ayaa waxaa ka mid ah mas'uuliyiin ka socda wasaaradda difaaca Mareykanka iyo taliska howlgalka ciidamada Mareykanka ee Africom. si xoojinta xiriirka iyo taageerida dhinacyada badan ee dowladda Mareykanka siiso Soomaaliya ayaa sidoo kale ay ka mid ah waxyaabaha looga hadlayo shirka maanta, iyadoo dowladda Mareykanku ay ka mid tahay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ka taageera dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale la dagaalanka al-shabaab. madaxweynayaasha maamulada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Beedhabo gaaray, iyadoo shir saddexda maamul goboleed uu goordhow uga furmayo magaaladaas. haddaba warkan waxaan ka wareysanay wariyaheena Axmed Cabduqaadir Yarow oo magaaladaasi jooga. waxaa goordhow soo gaaray magaalada Baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Foorfoor iyo wafdigii uu hogaaminayo, waxaana garoonka kusoo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Waqti Gareed, waxaana hadda soo xaadiray oo shirka soo fadhiisanaya inkastoo weli aysan soo gelin saddexda madaxweyne Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug, ayagoona ka hadli doona arrimaha la xiriira shirka madaxweynaha uu ku baaqay inay isugu yimaadaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada magaalada Muqdisho iyo mowqifkii ay ka qaadan lahaayeen. waxaana la filayaa saddexdooduba in galabtaba ay iska soo aadaan sida ay u xaqiijiyeen mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed magaalada Muqdisho ayna ku soo biiraan shirka uu ku baaqay madaxweynaha, oo dabcan ay la geli doonaan madaxda hadda ku sugan magaalada Muqdisho, Puntland iyo sidoo kale Jubbaland iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. marka hadda waxaa socota qabanqaabadii ugu dambeysay oo shirku ku furmi lahaa. waaye Axmed, waxaad iga warantaa marka ammaanka magaalada Baydhabo waa sidee? ammaanka aad ayaa loo adkeeyey, ammaanka loo adkeeyey. waxaad moodaa maanta in magaalada Baydhabo uu ka bedelan yahay jawigeeda sidii hore uu ahaan jiray. waxaana sidoo kale xusid mudan in ciidamo aad u tiro badan uu la yimid madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Foorfoor, kuwaas aad u weesnaa. waxaad moodaa in magaalada sidii hore ay ka duwan tahay. ammaanka goobta shirka lagu qabanayana oo ah madaxtooyada Koonfur Galbeed weliba hoolka qorsheynta aad ayaa loo adkeeyey. marka goordhow ayuu shirka furmayaa. aad baad u mahadsantahay Axmed. dadkii ugu badnaa ayaa lagu soo waramayaa inay ka barakaceen gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii uu fatahaad hor leh webiga Shabeelle ka sameeyay halkaasi. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faahfaahinaya. waxaa saacadba saacada ka dambaysa xaafadaha magaalada Beledweyne fatahaad ka geysanaya webiga Shabeelle oo mara xaafadaha magaaladaas. shacab badan ayaa ka barakacay xaafadaha magaalada, waxayna gaareen deegaanka Ceel Jaalle oo 8 kiiloomitir u jirta magaalada xarunta u ah gobolka Hiiraan ee Beledweyne. qoysas deganaa xaafadaha Kooshin, Xaawataako iyo Buundaweyn ayaa ka baxsaday guryahooda maadaama si xooli ah oo xaafadahaasi fatahaad ugu geystay webiga Shabeelle. waxaana kumanaan ruux oo naftooda kala baxay mashaqada ka taagan Beledweyne ay gaareen deegaanka Ceel Jaalle. mid ka mid ah dadkii maanta ka baxay xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne oo la hadlay warqabadka KNN ayaa ka warbixinaya dhibaatada ka taagan Beledweyne. hadda waxaan ku suganahay Ceel Jaalle, dad fara badan ayaa ku sugan oo soo barakacay. dadkaas guryahoodii biyo ayaa galay. guddiga gurmadka biyaha waxay sameeyeen dadaal xoog leh. dadaalka bacdi biyihii ay xanibeen waxay soo galeen xaafadii Beledweyne. wax asaasi inta nolosha asaasi ah wax oo hadda ay hayaan ay fara ku hayaan ma jiraan. boqolkiiba konton waa soo barakacay. dadku meelaha laga soo barakacayna waxaa kamid a tootalaminta xaafadda Kooshin 4 laamood soo barakacay. xaafadda Kooshin iyo maanta bishii kala 7 intii ka dhaxaysay biyo waa ku socdeen. xaafadda Kooshin, Xaawataako, Buundaweyn intaba waa saameeyeen haba kala darnaadaan. dadkii ugu badnaa ee maanta ka barakacay Beledweyne ayaa qaarkood maanta deegaansanaya goobo cidla ah oo dhaxan iyo kanaaco ay heliso. waxaana sidoo kale jira
shacab iyaguna saacadihii lasoo dhaafay ka baxay guryahooda kuwaas oo xaalad nolol xumo ay ku haysato duleedka beledweyne waa markii saddexaad ee muddo ka yar 2 sano uu webiga Shabeelle uu fatahaad ka geysto beledweyne shacabka reer beledweyne ayaana dhibano u ah fatahaadda soo noqnoqotay ee ka dhacda magaalada xarunta u ah gobolka Hiiraan ee beledweyne maamulka Hirshabeelle iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa dusha kala socda dhibaatada ay wajahayaan shacabka reer Hiiraan qaasatan reer beledweyne ciidamada xoogga ayaa al-shabaab waxay kala wareegeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Mudug Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan inoo soo diray ciidamada xoogga dalka qaybta 12 ee militariga Soomaaliya oo fariisinkeed u yahay magaalada Bacadweyne ee gobolka Mudug ayaa howlgal ay ka sameeyeen dhowr deegaan u dhow Bacadweyne al-shabaab kala wareegay deegaanada hoostaga deegaanka Shabeelle oo dhawaan uu ka dhacay dagaal u dhaxeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka halkaas oo saraakiisha ciidamada ay sheegeen inay soo buux dhaafeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha howlgalkan hogaaminaysa ayaa sheegay in cabasho uga timo dadka shacabka ay ku nool tuuleenka hoostaga Shabeelle gaar ahaan tuuleenka Ahaabe iyo deegaanada kale ay ka sheegeen in dhibaato ay kala kulmeen dagaalamayaasha al-shabaab sida hadalka u dhigeen taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 12 ee saldhigga degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in deegaanada halkan ay ka fuliyeen ay 25 kilomitir dhan galbeed ay kaga xigaan magaalada Bacadweyne ee gobolka Mudug isla markaasna dhibaatooyin ay ka wadaan al-shabaab ayna ka qaadayeen xoolahooda sidoo hadalka u dhigay waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay la wareegeen salagyada ururka al-shabaab ay ku lahayeen deegaanada hawlgalka laga fuliyay isla markaasna ay guul ay ka gaareen dagaal ciidamada dawladda ay la galeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab isagoo sii hadlayay waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sii wada doonaan hawlgalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ilaa inta ay ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin tuulooyinka hoostaga degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug ee Galmudug gudoomiyaha magaalada Bacadweyne ee gobolka Mudug oo la hadlay radio kulmiye ayaa sheegay in ciidamada dalka hawlgal ay kala duwan ay ka wadaan deegaanada hoostaga degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug isla markaasna wixii natiijo ka soo baxa dhawaan warbaahinta loo soo bandhigi doono ciidamada dawladda ku sugan meeshaas kulli hawlgalana way ka sameeyeen marka kulli waa deegaanadoodii bay wadaan hadda aniga waxaan xaqiijinayaa kaliya in hawlgal uu socdo hawlgalkaasina meelo badan laga sameeyey laakiin waxa weeye hadda goobta hadda kuma sugni aniga intaasaan ku cadaynayaa inta badan tuulooyinka ku taasan deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug ayaa wax dhowr jeer ka dhacay dagaal u dhaxeeya dagaalamayaasha al-shabaab iyo dadka deegaanka waxaana hawlgalkan ugu soo aadayaa iyadoo wali dadka deegaankaasi ay ka soo yeerayso qaalaan ku aadan culays al-shabaab ay soo saareen inta badan tuulooyinka hoosteeda deegaanka Shabeelle ee gobolka Mudug Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmiye Cadaado taliska booliiska ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen howlgal dhalinyaro badan lagu soo qabqabtay oo laga sameeyay degmada Afgooy oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose Cabdifataax Cali Cumar ayaa warkan haya shirkan jiraayad uu qabtay taliyaha daraawiishta qaybta Shabeellada Hoose taliya Nuur Xayir ayaa waxa uu ku faahfaahiyay howlgal saacadihii u dambeeyay ka sameeyeen ciidamada isku dhafka ee booliiska iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta waxaana howlgalkan laga sameeyay guud ahaan degmada Afgooy iyo deegaanada ku dhow waxaana taliyuhu uu sheegay in howlgalku uu socday in dad badan lagu soo qabtay isla markaana qaarkood la sii daayay markii wax dambi ah lagu waayay waxaana uu sheegay halka qaarkood tuhunka lagu hayo ay haatan ku jiraan gacanta booliiska wax dhibaato la aysan ka dhicin oo lagu guuleysto si kooxaha nabadiidka looga ilaaliyo dadka shacabkaasi ay soo dhibaateen oo aysan u hagardaamayn sidaasaa sabab u ah idinkana waa dareemi kartaan meeshii amnigeedu uu sugan yahay iyo meeshuu sugnayn waa laiskugu imaan karaa meeshii amnigeedu sugan yahay waana isku arki karaa laakiin meel ammaan darraa inaan cidna isku arkayn kullitiin waa dareemi kartaa ma jiraan dad la soo qabtay oo iyagoo gargabayaashii u shaqeynaya oo ka tirsan oo dadkii dhibaatada la daba joogaan ay tahay waa la soo qabtay isku soo wada duub oo saacadihii u dambeeyay ayaa howlgalka inta uu socday waxaa hakad ballaaran uu ku imaaday isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo goobaha ganacsiga walow haatan si caadi ah ganacsiga ugu shaqeynayo isla markaana dib u furmeen wadooyinkii ay xireen ciidamada ammaanka degmada Afgooye Cabdifataax Tawakal Cali Cumar KNN gobolka Shabeellaha Hoose dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xeer ilaaliye gaar ah u magacaawday la socoshada tacadiyada ka dhanka ah saxafiyiinta Soomaaliyeed si sharciga loo horkeeno kuwa ka dambeeya dhibaatooyinka loo geysta wariyaasha
war-saxaafadeedka kasoo baxay xafiiska xeerlaaliyaha dalka Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa lagu cadeeyay in ujeedada magacaabista jagadan ay salka ku hayso sidii loo soo qaban lahaa kuwa abaabulay misana qorsheeyay dhacdooyinka ka dhanka ah wariyaasha oo meelo badan oo dalka kamid ah ka dhacay. dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay ballan qaaday in ay dardargelin doonto sidii ay ula xisaabtami lahayd cid walba oo lagu tuhumayo in gaboodfallo ay u geysteen saxafiyiinta Soomaaliyeed. iminkana Shabeellada Dhexe kumaandooska Soomaaliya ayaa howlgalla miinabaarisa waxay ka wadaan inta u dhaxaysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar sida uu ku soo warramay wariyaha KNN uga soo warrama gobolkaasi Bashiir Cali Daahir. howlgalkan miinabaarista ciidamada kumaandooska ee dowladda Soomaaliya ay ka sameynayaan wadada xiriirisa degmada Jowhar iyo Balcad gaar ahaan dhinaca wadada galbeed ee isku xirta magaalada Jowhar iyo Balcad ayaa waxa ay tahay mid ay kaga hortagayaan weerarada qarax ee al-shabaab ee halkaasi ka geystaan. ciidamada kumaandooska ee dowladda Soomaaliya ayaa miinabaaristaasi waxa ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan galbeedka wadada laamiga ee magaalada Jowhar iyo degmada Balcad isku xirta. dad ku sugan deegaanadaasi ayaa waxa idaacada kulmiye ay u sheegeen in ay saaka aroortii ciidamo aad u fara badan oo kuwa kumaandooska dowladda Soomaaliya halkaasi ku arkeen kuwaas oo miinabaaris ka sameynayay. muddooyinkii la soo dhaafay ayaa dagaalamayaasha al-shabaab waxay weerar qaraxyo ka geysanayeen wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad taasoo ay la beegsanayeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo halkaas oo isticmaala. arrimahan ayaa waxay ku soo aadeen xilli ciidamada militariga Soomaaliya maalintii shalay ay miinabaaris ka sameeyeen wadada xiriirisa degmada Balcad iyo Afgooye halkaasoo markii dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo qaybo ka mid ah degmada Balcadna ay la wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab. si kasta aataba deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa muddooyinka la soo dhaafay waxa ku soo kordhayay weerarada ay qaadayaan al-shabaab kaasoo ay ku qaadayaan fariisamada ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaana arrimahaasi barbar socda howlgalla ciidamada dowladda iyo kuwa Hirshabeelle ay sameynayaan kaasoo ay ka sameynayaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. daladaha waxbarashada ee Seeda Sofe iyo Sofel ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay ku dhaqaaqday mas'uuliyad darro weyn oo dhinaca imtixaanaadka ah. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ka waramaya. war qoraal ah oo ka soo baxay daladaha waxbarashada ee kala ah Seeda Sof iyo Sofel ayaa lagu sheegay in wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay ku dhaqaaqday mas'uuliyad darro aad u baahsan oo dhinaca imtixaanaadka ku aadan kadib natiijada imtixaanaadka qaranka ee 6 bisha September ee sanadkan 2020 lagu dhawaaqay laguna sheegay in ay hartay arday gaaraysa 7873 arday ee dugsiyada gobolka Banaadir ayaa waxa soo ifbaxaysa mas'uuliyad darro weyn oo ay ku dhaqaaqeen siyaha wasiirka waxbarashada iyo howlwadeennadiisa ee agaasinka wasaaradda iyo xafiiska imtixaanaadka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay daladahan. waxay ahayd Maarso 2020 markii uu siyaha xilka wasiirka wasaaradda waxbarashada ku dhawaaqay in la xiro dhammaan dugsiyada si loo ilaaliyo badqabka ardayda ee cudurka COVID-19 ku aadan muddo ka badan 3 bilood oo waxbarasho la'aan ahaayeen ardayda iyadoona aynan wasaaradda wax qiimeen muqarrar ah ku sameyn aysanna wax ka weydiin ama kormeer hubin muqarrar ah ku sameyn ayay ku dhaqaaqeen imtixaan aan laga fikirin dejintiisa iyo muddada ay dibad joog ahaayeen ardayda. waxaad arkaysaa in wasaaradda waxbarashada aysan wax walwal ah ka muujin aayaha ardayda gobolka Banaadir bal waxay ka muuqato farxad mar haddii dugsiyada gaarka ahi ugu yaraan ay u muuqato in aan wax lagu baran kalsoonida shacabka ee dugsiyada gaarka ahayna ay lumiyaan. hadday mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada wax yar oo mas'uuliyad dareemi lahaayeen maanta xilka ay iska casili lahaayeen ayaa la sii raaciyay qoraalka ay soo saareen daladaha waxbarashada ee kala ah Sof, Seeda iyo waliba Sofel. ugu dambeyn taladahan waxbarashada ee Sofel, Saf iyo Seeda waxay ugu baaqeen madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo siyaha xilka ra'iisul wasaaraha Maadi Maxamed Guuleed in lagu xisaabtamo howlwadeennada wasaaradda waxbarashada qaladaadkii dhacay isla markaana laga xayuubiyo xilalka wasaaradda ay ka hayaan iyo in mustaqbalka dugsiyada ardayda gobolka Banaadir aan gacanta loo gelin dad aan qaadi karin mas'uuliyadaasi.